meydka mid ka mid ah maxaabiistii ku xirnayd xabsiga Olison ayaa lagu soo waramayaa in laga helay gudaha xabsigaas, iyadoo ay hadda baaritaano ay bilaabeen durbaba qaybta gaarka ah ee loogu talagalay baaritaanada iyo gaboodfallada ka dhaca gudaha xabsiyada. Waxaana lagu soo waramayaa in meydka qofkaasi laga helay xabsiga degmada Olison ee deegaanada Muro iyo Romsdal, waxayna sheegayaan in ay hadda qaybta gaarka ah bilowday baaritaano la xiriiro sababaha keenay dhimashada qofkan oo meydkiisa laga helay xabsiga dhexdiisa. Waaxdan ayaa qaabilsan inay baaritaano iyo dabagalba ku sameyso gaboodfallada ka dhaca gudaha xabsiyada, sida jirdilada loo geysto maxaabiista iyo sidoo kale dhimashada iyo jirdilada ka dhaca gudaha xabsiyada. Waxaana lagu soo waramayaa in ay waaxdani hadda baaritaano xoogan iyo waraysiyo ay sameeyeen, waxayna baaritaan sidoo kale ku sameeyeen meydka qofka geeriyooday, halkaasoo ay sidoo kale sheegeen in ay sii baari doonaan oo ay waraysiyada iyo dabagalladaba sii wadi doonaan ilaa ay ka caddeeyaan haddii uu dembi jiro iyo haddii kale. Waxaana lagu soo waramayaa in meydka qofkani laga helay maalinnimadii shalay oo Talaado ahayd gudaha xabsiga degmada Olison, halkaasoo ay si degdeg ah kusoo gaareen waaxda dembi baarista ee khaaska u ah baaritaanada kiisaska noocan ah. Kormeeraha guud ee booliska deegaanada Muro iyo Romsdal, Ingeve Skolvie, ayaa lagu soo waramayaa isaguna in uu sheegay in ehelada iyo qaraabada iyo qoyska uu ka baxay qofkan ku geeriyooday gudaha xabsiga lagu wargeliyay lana ogeysiiyay dhimashadiisa. Waxa uu intaa ku daray inaysan hadda booliska jawaabo dheeri ah ka bixi karin, iyadoo ay gacanta kiiskan ku hayaan hay-adan baaritaanada dembiyada iyo gaboodfallada ka dhaca gudaha xabsiyada ay u qaabilsan yihiin ay baaritaano wadaan. Waxayna booliska iyo hay-adda baaritaanka wadaba ka gaabsadeen in ay faahfaahinno dheeri ah ka bixiyaan kiiskan, in uu yahay mid dembi ku talagal loo dilo qofkaas iyo in uu yahay mid caadi. Waxa ayna sheegeen in ay baaritaanka faraha kula jiraan oo aysan wax faahfaahin iyo sidoo kale macluumaad dheeri ah ka bixi karin xitaa qofka dhintay cidda uu yahay iyo waxa uu yahay. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.